بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوما IT tutorials iyo cashirkii labaad ee Python-ka. Cashirkan waxaan uga hadli doonaa haddii la idmo sida aan ugu shubi lahayn system-ka Python iyo environment-iga aan ku shaqeyn lahayn. Waxaan cashirka koowaad ku soo qaadanay introduction ku saabsan ama waxyaabo aad ka ogaanaysid Python-ka inta aanan guda gelin cashirada kale. Cashirkan marka waa installation-ka iyo setting up Python environment-iga. si aan ugu shubno Python automatically waxaan tagaynaa Google-ka ayaa waxa ku qoraysaa Python kaliya official website-ka ugu horeeya ayaa ku soo bixi doonaa Python website-kaas markaad tagtid waxaad ka sii tagaysaa dabcan waad akhrisan kartaa information-ka oo dhan laakiin waxaad ka tagaysaa downloads-ka markaa waxaad dejisanaysaa sidoo kale meeshaas ayaa platform-kaaga ka dejisanaysaa haddii aad Windows ratid haddii aad Mac OS ratid haddii aad muxuu ahaa versions-ka xataa aad rabtid oo kale waa hubin kartaa laakiin inaga waxaan soo degsanaynaa oo kale Windows ayaan ku degsanaynaa application-ka version-ka aad dejinaynana waa version-ka hadda 3.9.6 waa version-ka hadda Python aan isticmaalayno waxaa kale ogaataa haddii aad isticmaalaysid Windows 7 iyo wixii kasii horeeyay kuma shaqeyn doono version-kan 3.9.6 waa inaa version-ka 3.8 iyo aan muxuu ahaa meeshan ka raadaysaa kabacdina aad soo degsataa laakiin anaga hadda Windows 10 ayaa isticmaalaynaa Windows 10 iyo Windows 8 ka waa caadi saas daraadeed marka waa 3.9.6 ayaan soo degsanaynaa okay download ayaan ku dhufanaynaa automatically downloads-ka ayaan waxa leeyahay save ugu dheh soo jeedid wuu noo soo degay click ayaan leenahay waa ku dhufanaynaa waxa inoo soo kici doono application-kii sidaan ugu shubi lahayn ama setup-ka u samayn lahayn marka install now waa dhigi kartaa automatically haddii aad rabtidna waxaad tegi kartaa oo kale customization laakiin markasta waxaa muhiim ah check inaad dhahdid checkbox-kan ama aad meeshaan tick saartid si macnaha lagu daro path-ka loogu daro oo hadhowtii oo kale markaad isticmaalaysid sidoo kale Python-ka meelo badan aad ku kala isticmaalaysid uu kaaga saacido customization haddii aad dhahdid waxaa fiirin kartaa waxyaabaha Python-ka la socdo kale markaad ku shubanaysid oo kale sida hadda Python installation manager-ka oo kale PIP-ga package-ka qaabilsan oo kale package markii lagu shubayo Python waxyaabaha la isticmaalo kale intaan information-kan oo kale aan ku shubaynaa Python documentation-keeda waxyaabahan oo dhan adiga waxba kama bedelayno u baahanahay course-ka waqtiyada dambe ayaa u baahanaynaa install for all users ayaad meeshaan leedahay information-ka si macnaha useradaada oo dhan haddii user badan aad leedahay ay kaaga saacido install ayaa leenahay yes ayaan sii leenahay okay waxaa socda marka process-kii uu ku shubaayay waxaynu ku xiran tahay system-kaaga hadduu qaato waqti badan hadduu qaato waqti yar inaga hadda waxaan jecelnahay inuu qaadan doono waqti aad u yar marka waan isku soo laaban doonaa saas ay tahay markuu dhammeeyaan isku soo laabanayna insha Allah okay si hadda ujeedid setup-ka waa successful oo waa uu dhameeyay Python hadda system-keeni waa uu ku jiraa wuxuuna diyaar u yahay inaan ku dhex isticmaalno maadaama aan Python installation-kii dhameynay waxaan leenahay can close si aad marka u hubisid in Python aad si successful ah aad ugu shubtay system-kaaga waxaan tagaynaa cmd ayaan leenahay ama command prompt-ka ayaa soo kicinaynaa waxaan ku qoraynaa Python --version waxaa arkaysaa hadda waxaa soo baxday Python 3.9.6 oo ah version-ka aan ku shubnay system-keena haddii aad rabtid marka Python-ka waa usii gudageli kartaa oo kale haddii aad Python qortidna wuxuu ku geynaa marka Python shell ayuu kusoo bixinaa kaasoo aad ku qori kartid Python code aad ku qori kartid tusaale ahaan oo kale hadda haddii aan qorno oo kale print haddii aan qorno print dhexdeeda waxaan ku qoraynaa oo kale hello user oo kale aan ku qoraynaa okay waxaan leenahay close enter ayaan leenahay waxaa inoo soo bixi doono soo ujeedidba inoo soo baxay hello user hello user dabcan waa print hadda waxaan ku qornay Python code aan ku qornay xataa isku dar waa samayn kartaa oo kale 4+5 haddii aad tiraahid oo kale 9 ku soo bixaysa Python shell-ka ku dhex jirta macnaheeda oo meeshaan hadda code Python waad ku qori kartaa waxay ku tusaysaa inaad Python ku shubtay system-kaaga si muxuu ahaa successful ah u shubtay waxaa kaloo jirta marka IDE la socda Python-ka oo la dhaho idle haddii aad searching ku qortid waa arkaysaa idle waa muxuu ahaa Python editor oo muxuu ahaa aad ku qori kartid code-kaaga shell-ka ayuu wataa waliba
tusaale ahaan oo kale hadda wixii meesha ku qoraynay command promptka ku qoraynay ayaa inta ku qori kartaa oo waxaa dhigi kartaa tusaale ahaan oo kale hadda print qorno kale hello world oo kale oo ujeedaa xitaa muxuu ahaa kala ra'yo siinaa keywords iyo waxyaabaha stringiga la isticmaalayo hadda dhahdid enter wuxuu soo bixinaa hello world oo python code lagu qoro waa sidoo kale marka waxaa samayn kartaa oo kale tusaale ahaan oo kale waxaa leedahay oo kale new file ayaa dhigi kartaa oo ah python scripts ayaa inta ku qori kartaa programkii aad rabtid oo kale inta maadaama shell uu yahay programka si toos ah u qori kartaa waxaa dhigi kartaa tusaale ahaan oo kale printidan ayaan hadda ku qoraynaa waxaa leenahay copy inoo soo dheh waxaa leenahay intaa copy garaynayna filekan hadda markii intaan ku qorno inaan waxaan rabnaa rangareyno dabcan markaa rangareynaysid waxaa ku rangareysmaa shellkan ayuu soo bixinaa laakiin marka hore waxaan leenahay safe waxaan ku qoraynaa tusaale ahaan oo kale new hello ayaan leenahay tusaale ahaan oo kale okay safe ayaan leenahay markaad safe dhahdid waxaa kusoo bixi doonto inta ayuu kusoo saari doonaa run ayaan leenahay safe hadda waa safe gareynay waxaan leenahay run this module kabacdina waxaa kusoo bixaysa ujeedid hello world wax walba inta aad ku qortid markii aad run dhahdidna waxay ku imaanayaan inta ayay ku imaanayaan oo intana waa ku qori kartaa informationka python codeka iyo wixii waa ku qori kartaa tusaale ahaan oo kale haddii aad wax isku daraysid oo kale 9+8 haddii aan dhaho kale tusaale ahaan oo kale 17 uu kusoo saaraa marka IDE-gan wuxuu la socdaa marka python ku shubaysid optionka adiga dooranayo haddii aad rabtid waa ka reebi kartaa customizationka ay tusiyo ku jirtaa qaabkan marka waa qaabka ah python uu shubi lahayd oo isticmaal lahayd editorka iyo muxuu ahaa systemkaagana aad pythonka u install gareyn lahayd casharkan marka wuxuu ku saabsanaa qaabka aan python systemkeena ugu shubi lahayn gaar ahaan windowskan ugu shubi lahayn iyo sidaan python code aan fast python program aan ku rangareynay oo ah print hello world ama hello user aan shaashada kusoo saarnay iyo sida python shellka loo isticmaalo casharada xiga marka waxaan u gudagalaynaa python codeka ama python programkii ugu horreeyay programyada caadiga ah ayaan bilaabeynaa iyo wixii marka tutorialska pythonka ayaan usii gudagalaynaa maadaama systemkeena hadda uu ku jiro waxaan ku shaqayn karnaa python meeshas ayaan ku sameynaa wabillahi tawfiiq